soo baxay afartii bisha ee ka soo baxay waddankeena anigoo soo maray Ethiopia waxyaabaha aan u imid maxay ahaayeen waxaan u imid shaqo dowladeed bareefadna uma iman shakhsina uma iman anigoo qaranka Soomaaliland matalaya oo waxa waddankaygu u baahan yahay doonaya inaan iibiyo waddankayga fursadaha maalgashiga yaala inaan iibiyo waxyaabaha la qaybsanaya inaan qaybtayda helo ayaan hortooda wadamada Yurub qola la yidhaahdo Spark oo u qaabilsan muxuu ahaa ka diiwaangashan waddanka Netherlands oo capacity building warshadaha sameeya oo dadka maalgeliya diaspora wadamadooda jooga ayaana soo casuumay waxa xusid mudan inay nagu soo casuumeen markii hore iyo dadku waxa weeyaan caalamku qaarkood aanay weli fahmin waxa aynu kala nahay Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa waxay nagu soo casuumeen hal warqad oo ay ku qoran tahay waxa weeye Somali Ministers warqadaas markay xafiiskayga soo gaaray waxaa jirta waddanka cidda u xil saaran foreign ama arrimaha dibadda warqadii waxaan u geeyey ama aan xafiiskiisa u gudbiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Maxamed Biixi Yunis Maxamed Biixi markii aan qoraalkii u geeyey waxaanu isla garanay inaan shirkaa ka qaybgelin isna uu warqad qoro warqadiina hortayday taallaa uu ku leeyahay kama qaybgelayno haddii aydaan Somaliland oo madax bannaan si independence aydaan noo soo casuumin warqadii markaa Maxamed Biixi qoray ee uu qoladaa u qoray waa tan hortayday taallaa saxaafadduna wax wanaagsan inay arkaan oo warqadii uu qoray uu yidhi kama soo qaybgelayno haddaydaan Somaliland gaar u soo casuumin intaa maxaa ka dambeeyey in qoladii Spark ee casuumadda samaynaysay ay warqad kale soo diraan oo ay ku qoran tahay Republic of Somaliland Ministry of Foreign Affairs Somaliland warqadii kalena wataa waxay markaa ka garaabeen rabitaanka shacabka Jamhuuriyadda Somaliland iyo warqadda wasiirka khaarijiga qoray ee uu leeyahay kama qaybgelayno haddaydan Somaliland gaar u soo casuumin qolada goormani si fiican oo weey والله حبيبي intaa maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey markuu wasiirku warqadaa ka helay ayaa wuxuu qoray warqad uu leeyahay maanta maadaama aad qirteen inaad Somaliland gaar u soo casuuntaan waxaan ogolaaday in wasiirka warshadaha Jamhuuriyadda Somaliland uu yimaado shirka isaga sidaan horta ku yimid waa warqada wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda uu soo qoray ee uu leeyahay markii aanu saragnay shirkaa waa tegaysaa maadaama gaar ay noo soo casuumay sidaasaan aniguna ku imid waxaana ka qayb galay markaa kulamadii aanu ka qayb galaan ii sheegaya waxaa noogu horreeyey kulankii aanu la yeelanay guddiga joogtada ah ee baarlamaanka dalka Netherlands guddidaas markii aan la kulannay qof waliba wuxuu u bandhigay waddanka uu matalayay iyo waxyaabaha uu ka doonayay ase Somaliland hadalkii aan meesha ka jeediyey iyo qoraalkiisii waan hayaa isaga waxay ka hadlaysay inaan u mahad celinayno dowlad ahaan Somaliland ahaan dowladaha Yurubta sida Netherlands Sweden iyo Denmark iyo Norway oo kulamadu ay ka dhacaysay waxaan soo jeedinay markaa Somaliland ahaan naga taageeraan si toosa ay nooga taageeraan waxyaabaha baahiyadkaygu uu yahay waxaan uga mahad celiyey inay dowladda Holland ay qayb lixaad ku leedahay sanduuqa loo yaqaano SDF Somaliland Development Fund oo lagu horumariyo Jamhuuriyadda Somaliland oo toos lacagtaas ay u tagto inay Holland ka mid tahay baan uga mahad celiyey waaye waxaa kaloon ka codsaday isla fadhigaas inay dowladda Netherlands Somaliland ka taageerto dhinacyada amniga iyo korontada oo dalkeena qaaliya oo aad ogtihiin runtii aad iyo aad u soo dhaweeyeen waanay u riyaaqeen Somaliland iyo waxa ay qabsatay
waxaan u sharaxay intii doorashada waddanka dhacday, waxaan u sheegay waxaynu qabsanay, waxaan u sheegay waxyaabo fara badan oo xuluul xal lagu dhameeyey. deedna waxaan xasuusiyey 2 markab oo ay Netherland leedahay oo ay u dirto xeebaha si ay halkaa burcadbadeed iyo argixisada ugala dagaalamaan. waxaan u sheegay xal yaro intaa ka dhow ase Somaliland ahaan waxaan ku yidhi waxaan idinka doonaynaa maadaama ood maraakiib dagaal u dirteen wadamada bariga Afrika, waxaa idinka wanaagsan Somaliland